waxaan rabaa inaan sharaxo cashuurtii laga filayay ama dakhligii laga filayay inuu ka soo xiroodo qaybaha kala duwan ee cashuuruhu ku waajibeen cashuurta ugu horeysa waa cashuurta xoolaha cashuurta seyladaha laga qaado waxaa laga filayay sanadkii hore 160,000 waxaana ka soo xirooday 106,348 dollar cashuurta gaadiidka dadweynaha iyadana waxaa laga filayay 117,625 waxaana ka soo xirooday 94,257 cashuurta suuqyada waxaa laga filayay 234,000 waxaana ka soo xirooday 187,80 dollar kala wareejinta dhulka waxaa laga filayay 353,011 dollar waxaana ka soo xirooday 331,230 warqadda dhalashada waxaa laga filayay 8,372 waxaana ka soo xirooday 10,000 cashuurta dhulka bannaan oo sanadkii dhaweyd la soo kordhiyay waxaa laga rabay inay ka soo xirooto 20,160 dollar waxaana ka soo xirooday 34,106 dollar cashuurta qiimaha guryaha oo cashuurta fiiyada guryaha waxaa laga filayay 244,187 dollar waxaana ka soo xirooday 68,819 dollar cashuurta dhulka sharciyeynta iyo fasaxa dhismaha guryaha waxaa laga filayay inay ka soo xirooto 399,675 dollar waxaana ka soo xirooday 464,951 dollar cashuurta liisamada ganacsiga waxaa laga rabay inay ka soo xirooto 28,140 dollar waxaana ka soo xirooday 4,730 dollar inta meelood aan soo sheegay ayaa cashuur ka soo xirootay waxa kale aan cashuur ka soo xiroon cashuurta beeraha waraabka oo laga filayay 2,910 cashuurta dhoofka xoolaha oo laga rabay 1,163 dollar cashuurta hargaha oo laga rabay 1,395 dollar cashuurta mulkeedaha 2,395 cashuurta calaamadaha ganacsiga xayeysiisyada iyo waxyaalaha la midka 3,489 dollar diiwaangelinta mashaariicda 3,488 dollar teesara 17,441 dollar warqadda qoyska 117 dollar kaashka badeecadaha oo cashuurta cudhaadha 140,000 tabarucaadka laga helo dadweynaha 112,350 dollar ganaaxa ama ganaaxyada 118,000 ayaa laga rabay hay'adaha caalamiga 147,674 dollar hay'adaha maxalliga 46,510 kabka dawladda dhexe 600,000 horumarinta caasimadda 40,000 cashuurta taawarada 5,627 cashuurta lama filaanka 23,070 dollar cashuurta la rabay waxaa ka soo xirooday 27 ilood baa laga rabay in dakhli ka soo xiroodo 9 kamid ayaa dakhli ka soo xirooday dakhligaas soo xirooday totalkoodu wuxuu noqday miisaaniyadii la rabay 2024 boqolkii 47.65 dakhliga soo xirooday intaas ahaa way okay waxaan u gudbi doonaa
kharashaadka iyo qaabka ay u baxday ama nooca kharashka noqotay way kharashka ay noqotay waxa ugu horeeya shidaalka 51964 toga geeda qarsay 6971 korontada biilka xarunta 3000 bandhiga buugi jaamac kadiya 4000 xaflada kowda luulyo 2800 xaydaamka xarunta agoomaha 2800 kirada waaxyaha degmada oo kirada xafiisyada waaxyaha 7800 kirada deerka gaadiidka oo macdaadka gaadiidka dawladda hoose yaala 1750 kirada seylada ariga oo kirada seylada ariga oo kirada 900 biyaha xarunta iyo isbeesada 3576 dollar raashinka shaqaalaha godka qashinka wardiyaha macida ka shaqeysa godka qashinka 1050 dollar kantaroolada magaalada isbeeshada kharashka laga bixiyo 3000 iyo biyaha dhismaha suuliga saldhiga dhexe 2850 iibinta taangiga saldhiga koonfurta iyo saldhiga bariga 500 daabacaada buugta degmooyinka ee cashuuraha 3500 taageerida qalabaynta xafiiska degmada Woodward 1000 dollar sportiska kooxda caasimada iyo koobkii degmooyinka ee la qabtay 3900 taageerida waxbarashada 2500 oo qayb ka ahayd imtixaanka iyo qarashaadka loo ka baahday 2500 qalabaynta waaxyaha degmada 2800 kharashka samaynta buugta waaxaha gudida kharashka samaynta gudida waaxaha markii la sameeyay waxa la sameeyay guri kasta konton tiriye kasta waa la soo calaamadiyay waa la soo tiriyay waxa ku baxay marka hawlwadanadii iyo shaqaalihii tirinayay 2800 kharashka 3760 tababarka gudida waaxyaha markii la isu keenay oo loo qabtay gudidii ay ka koobnayd 15 xubnood waxa loo sameeyay dhamaantood 189 xubnood tababar ayaa loo sameeyay askarta cashuuraha 1800 afwan kharashka nadaafada xabsiga 7800 wada banaynta magaalada 13720 mushaharka shaqaalaha oo ah kan soo xireeyay cashuuraha waa 383160 dollar taageerida amniga 38350 dayactirka gaadiidka dawladda hoose oo khasaare badan soo gaaray 56151 dollar dhismaha wadooyinka 194160 iibka gaariga barasaafka 17000 dhismaha iyo qalabayn dhismaha xarunta dawladda hoose oo interlog iyo hagaajinta ah 77500 taageerida wasaaradda arrimaha taageerida wasaaradaha maamulka SSC Khartoum oo aan taageernay waxa naga baxay 17500 oo ah qalabaynta xafiisyada iyo hagaajintooda taageerida xabsiga 5000 oo ah tan hore soo sheegnay ama TV-ga ku aragnay qalabaynta xafiisyada dawladda hoose 24706 dollar kirada xarunta wasaaradda arrimaha gudaha 12000 taageerida xarunta gobolka 12000 taageerida isbitaalka TB-ga 3500 taageerida xafiiska dacwadaha arrimaha diinta 3500 qaaraanka dafkii ka dhacay magaalada Balahara 3000 taageerida ciidanka dindamiska 18150 dollar caafimaadka shaqaalaha 16850 dollar deynta magaalada lagu kulahay dawladda hoose 131 daabacaada buugta cashuuraha dawladda hoose 16650 dollar dheeraynta bilicda magaalada 44912 dollar kharashka nadaafada oo iskugu jira gowraca xarunta magaalada godka qashinka dhamaantii 72572 dollar wabillahi tawfiiq intaas ay ku dhantahay xisaab celintii haraadiga soo haray
waa 20,900